بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دمانتين آدين ودون سلامية صادو دنتهين waxaan kaloo maaragtay aan salaamaya soona dhaweynaya asxaabta cusub ee maaragtay channelka ay ku soo biiray soo dhawaada walaalayaal waxaan idin wadaa faa'iido yar oo maaragtay kooban oo maaragtay runtii muddo laga sugayay faa'iidadaas oo ah faa'iido la xiriirta xagga maaragtay caafimaadka oo aad muhiim u ah maadaama oon xagga nutritionka aan maaragtay nutritionka wax ka bartay waxaan rabaa inaan faa'iidadaas aan idin soo gudbiyo insha allahu tacaala marka horeysa qurbeenu joognaa oo cuntadu waxa weeyaan waa iska cunto artificial ah oo wax laga sameeyey ilaahay uu garan karayo wadankeedii ma joogno cuntadu wax walba organic ay ahayd oo naturalka ay ahayd ma aynu joogno ta kale qorax ma aynu hello maaragtay inagu filan jirkeena inagu filan ma aynu hello marka waxyaabo badan ayaa inaga maqan waxyaabahaas maadaama aynu haysanin ayaa waxaa la doonayaa inaad maaragtay rag iyo dumarba in aad caafimaadka runtii xaqiiqatan aad caafimaadkaaga aad uga fakartid oo yacni aadan dhayalsanin sida dadkeenu u badan yahay marka waxaa la doonayaa inaad cuntadaada daayatkaaga oo isku dheelitiran iyo maaragtay faytaminadaada iyo waxaaga dhag ay isku ka ahaadaan si maaragtay adan isku dhex yaacin iyo in la isku dhex yaaco lama doonayo sooma waa in markaa wixii oo dhag ah cuntadaadii faytaminkaagii waxaagii oo dhag ah markaas insha allahu tacaala markaas saasaa loo baahan yahay oo dee wax muhiim ah marka waxaan rabaa ta kale inaan idin sheego faytaminadu maadaama wadamo aynu joogno gaala ah wax kasta waad ogtay qaansiirkay ku daraan qaansiirkana maadaama wada islaam aynu nahay inagu waa inaga xaaraan marka brandka aan isticmaalo ayaan idin tusayaa si aad u ogaataan brandno badanna way jiraan oo maaragtay aan doofaarka lahayn oo xalaal ah way jiraan oo marketka yaala faytaminaduna mid waxaa jira rag iyo dumar la isla qaadan karayo oo maalintii xabad kaliya ah oo wixii oo dhan oo la isku geeyay wixii oo dhan oo loo baahnaa wata yacni oo rag iyo dumar ay qaadan karayaan marka anigu kaama isticmaalo anigu waxaan jeclahay inaan faytamin kasta oo sidiisa gaarka ah aan usoo iibsado oon midkiiba xabad aan ka qaato maalintii waxaan u baahanahay marka kolley qof kasta dhakhtar buu leeyahay oo maaragtay xagga caafimaadkiisa iyo waxyaabahii caafimaadkiisa la xiriira uu maaragtay kala xaajoodo laakiin intani waa in yaroo iska basic ah oo qof waliba uu baahan yahay maadaama dad qurba jooga aynu nahay oo wax badan ay naga maqan yihiin jirkeena si aynu isugu dheelitirno marka brandkan waa la tusayaa brandkan isticmaalo waxaa la yiraahdaa nature made soo ma jeedaan brandkaas doofaar absolutely male marka kaas waa vitamin c ga aan isticmaalo maalintii xabad ayaan qaataa vitamin c gu waxa weeyaan difaaca jirkaaga ayuu kor u qaadayaa si aadan ugu nuglaanin xanuunada oo dhan hargabku ha ugu yaraaday haddii vitamin c gaagu uu isku dheelitiran yahay wax kugu dhacaya ayaa iska yar marka vitamin c ga ha lagu dadaalo wuxuu aad maaragtay uu kor u dhisaa maalintiiba haddaad xabad qaadatid difaaca jirkaaga vitaminkaas waa ka koowaad vitaminka labaad waxaa weeyaan waa vitamin d vitaminka la yiraahdo waa qoraxda wadankeena markaynu joognay wax badan oo faa'iido ay qoraxdu jirka u leedahay oo waxa ugu muhiimsan ee maaragtay qofka bini'aadmiga ah uu jirkiisu ka qaadan karayo waa qoraxda marka maadaama aynu qurbo joogno oo 4-5 biloodba aynu qorax arag waxaa la doonayaa inaad vitamin d gaagaas maalintii aad xabad qaadatid si maaragtay wixii jirkaaga u baahnaa يعني waxyaabaha inaga maqan si ay noogu dhamaystirmaan waxyaabo badan baa jira oo maaragtay lagu dhiso oo waxyaabo badan oo yani vitamin D ga ku jira ayaa jira oo calciumka iyo waxyaabo badan oo maaragtay jirka loo baahan yahay inuu difaaco inuu yani uu dhiso marka vitamin D gu waa sidaas oo muhiim ah vitaminkaas waa vitaminka labaad vitaminka saddexaad waxa weeyaan waa B2 alif vitaminka la yiraahdo xagga maskaxda neerfayaasha la xiriira ayuu ka caawinayaa si yani uu ilowsho iyo xanuunadaasi qofka ayaan ugu dhicin faa'iidaas buu leeyahay faa'iidada labaad uu leeyahayna waxa weeyaan
faa'iidada labaad uu leeyahay waxaa weeye wuxuu ku siinayaa energy. Yani gabdho badanoo waxaan arkay yidhaahaa sariirta waale kama kici karayno, waxba ma qabsan karayno, anaga dhan daciif baanu dareemaynaa. marka B12 haddaad maalintii xabad qaadatid vitaminkaas adiga dhan waxaad noqonaysaa energize bunny kala yidhaahoo kale ya maalintii oo dhan saasaad guriga dhan hawsha kor iyo hoos aad mufuga siinaysaa. taasna waa waxa la doonayo. rabadaan hadeerba inoo soo galaysaa, marka waa in energyga kor loo soo qaado oo maaragtay vitaminada la isku bilaabo. dad badan oo vitaminada qaataa way jiraan, laakiin waxaa kasii badan inta yani aan qaadanin iyo inta yani aan badanaynin oo wax weyn baanu arag. marka xaqiiqatan wax weyn waana wax loo baahan yahay rag iyo dumar insha allahu tacaala. marka gabdhaha xaasaska ah nimankiina uga faa'iideeya, aniguna waan idin soo gudbiya insha allah si aad uga wada faa'iidaystaan insha allahu tacaala. fiidiyoga xigi doona ayaan cunto kasta yani vitamin kasta cuntooyinka loogu talagalay inaad yani aad ka heli karaysid aan idinka dhigi doona hadduu ilaahay yidhaaho. gabdhaha iyaga uurka leh ama walaca ah sheekadooda waa different insha allah. video ayaan usoo samayn doonaa gaar ah. iyagu waxyaabo badan ayay u baahan yihiin. vitaminada waa dadka iska caadiga unbaa loogu talagalay yani, laakiin gabdhahaas waxooda waa special insha allah. haddii maaragtay aad doonaysaan ood interest ku tihiin ay jiraan gabdho uur leh waan idin soo gudbin karaa hadduu ilaah yidhaaho. ila soo socodsiiya fadlan. markaad fiidiyooda daawataan suulasha maaragtay taaga, taasi aniga ay dhiirigelinaysaa oo inaad yani ka hesheen fiidiyodeeda ayay dareensiinaysaa si aan usoo badiyo. markaa suulasha haygala baqaylina, commentigiina haygala baqaylina. maxaa la dhahay su-aalo haddaad qabtid anigaa habi ku ah inaan idin soo jawaabo oon idin faa'iideeyo qayb kasta oon yani wax kasta oon idinkaga faa'iideyn karayo. badhanka yarna ha ilaawina inaad taabataan hadduu ilaahay idmo. dad badan oo i daawadaa jira laakiin aan subscribers aan ahayn, laakiin aad ii daawada. marka insha allah kulliba haddaad i daawanaysaan subscribe-ka iska taabta insha allah si wax walba update oo cusub ay hore idinku soo galaan. marka videoga intaynu ku kulli doono ka xigi doona waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.